muuqaalku waxay ku bilaabaysaa 2018 waxaana la ina baraya jilaag ugu muhiimsan waa gabar lagu magacaabo siiha. gabadhani waxay leedahay awood gaar ah in marka qofka ay dhegaysato inay markiiba ogaan karto in qofkan uu been sheegayo. ilaa maalin maalmaha ka mida uu u yeeray nin burcada si uu markaas u wareysto 3 nin oo isaga la shaqeeya. ninkaasi 3 nin waxa uu uga shakiyay in mid ka mida uu khiyaano u geysanayo isla markiiba goobta ayay timid. dadka ayaana bilowday inay markaasi mid u wareysato waxayna ogaatay in 3dood ay yihiin dad run sheegaya. iyadoo weliba u wargelis in dadkan aysan waxba galabsan nasiib daro si in wadanka uu yahay madaxa labaad ee shirkadani. hogaamiyaha burcada raggiisii ayuu ku amray inay ninkan waxayna u sii socotay guriga iyadoo weliba aragtay maaliyad ee qabto mid la mid ah inuu nin qabo. balse wiilkaasi fanaanad ayuu gacanta ku haysta oo weliba dhiig badani ka daataya. maalinnimadii heegtay ninkii maamulaha watii shaxan loo dilay guriga sigu ayuu yimaaday isagoo marka uga argooso. isla markii ay ka soo carartay iyadoo weliba suurta gashay inay soo raacdo bas u socda magaalada caasimada ee Seoul. halkaasi waxay kula kulantay wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Kimda. ninka la rakaab ah ayaa lagu magacaabo ayaa sidoo kale baska soo fuulay isagoo weliba Kim ku eedeyn inuu walaashiis calaaqad la yeeshay. hadda Tom gabadha walaashiisa ayaa ka maqan caawimo ayuu kala dalbaday si uu markaasi gabadhu la raadiyo balse Kim waa uu diiday. taasoo keentay inuu markaas uu fuuro sababta la ajilgeed baska waa la istaajiyay. kibracadka waxa uu ku dhow yahay inuu baska gudaha u soo galo inanta ayaa soo kala dhex gashay oo yamu isku dayday inay baska ka dejiso. iyadoo weliba ku tilmaamaysa inay tahay Kim saaxiibtiisa sababta la ajilgeed socdaalkii safarka baska ayaa la bilaabay. intii safarka lagu jiray Kim waxa uu ku yeeray aniga shakhsiyadaada waxba kama garanayo. halkayana uu sheegtay inay markaasi taqaano qofka runta sheegaya iyo midka beenaalaha waxayna u dhiibtay kaarkeeda. kadibna safarkoodii ayay sidii ku galeen taasi waxay tagto hore aynu hadda dhimaano timaadada maanta 5 sano kadib ee dhacdadaasi waxaynu ku sugannahay 2023. halkani waxaan ku aragnaa siyaal oo ku jirta baabuur qaaliya waxaana wada nin lagu magacaabo Chen. waxayna rabtay inay la kulanto macbiil maalqabeen ah kaasoo lagu magacaabo Jihi. nabaati waxay rabtay inay ogaato jacaylkeedii oo supermarkaasi jiwo inuu si dhab u jecel yahay ama inuu jecel yahay lacagteeda. iyadoo markaasi qadil ayaa loogu yeeray waxayna bilowday inay markaasi wareysato. Jiw waxa uu sheegay markii ugu horeysay aniga xiriirka lacag ayaan u soo galay laakiin si tartiib ayaan bilaabay inaan iyada u jeclaado. mar dambe inanta shaqaale ayaa timaaday oo cabitaan meesha dhigtay. waxayna markaasi ogaatay in Jiw uu xiriir la leeyahay gabadha shaqaale ka halkani. haasatan ay weliba uur u leedahay warkan oo dhami ayayna u sheegtay. tani oo keentay inay aad u carootay waxayna bilowday inay ninkaasi meesha ka buriso. mar dambe baabuurka ayaa lagu soo qaaday waxaan ogaanaynaa inay hadda ka shaqeyso magaalada caasimada. waxayna markaasi caawiyeedu u sheegtay in hadda khidmadeedii lacageed ee kor u qaaday. shaqaale ayaa wax ka weydiiyey sida ay ku heshay awoodani qarsoodiga ah. waxayna markaasi sheegtay in hooyadeedii ay markaasi din walba ay ku biirtay si ay markaas iyad u dacaysato. iyadoo weliba ku dacaysanaysa ilmaha caloosheedii ku jira in markaas ilaahay uu siiyey awood gaar ah si markaas unuga yar ee mustaqbalka dhalanaya uu ku noolaado nolol farxad leh. aniga noloshadeeda la yaab ayay ahayd markii ugu horeysay aan barbaarayay waxaan lahaa awood gaar ah. hooyadayda waa ay necbay laakiinse mar dambe waxay ogaatay inaan isticmaali karo awoodani oo aan bulshada dhexdeedu ku noolaan karo. sidaas ayaana qof caaru ku noqday taasoo markiiba ogaan karto qofka been sheegaya iyo midka rulowga ah. markiiba meel xafiis ayaan furtay sida ayuun ilaahay igu barakeeyay. gaariga dhexdiisa Kim waxa uu markaas uga sheekeynaya fanaan caan ah oo lagu magacaabo Kim Daha. Kim aad ayuu ugu faraxsan yahay waayo bandhig ayaa la qabanaya oo ninkaasi lagu abaalmarinayo. qof walba waxa uu rajeynaya inuu ninkaasi wejigiisa arko laakiinse Kim Hagan fanaankani eedna wejigiisa dhabta ma garanayso inta badan shakhsiyadiisa waa uu kariyaa. kadib muuqaalku waxa uu wareegaya Kim oo hadda si cabsi leh waqti habeenimo u wada baabuurkiisa isagoo weliba face mask xiran. waxa uu iska indha tiri wicitaan ka yimaaday gabar fanaanad ah oo lagu magacaabo Shiona. markiiba ciidamo ayaa qabtay waxayna markaasi tijaabinayeen inuu habbi cabaya in kale. isagoo ku dhow inuu maskiga furo ayuu bilaab inuu meesha uu ka baxsado isagoo weliba sii marsiiyey nin askari ah. intaa kadib Kim ayaa aaday meel ilaa oo sir ah waxaana bilaab inuu bandhig u daawado halkaasi
abaalgudka maanta bandhiga sanadka ayaa meesha ka socda gooleysugana cid kale ma noqon isla fanaankani Kim ayuu ahaa abaalmarinta Kim loogu talagalay caawiyihiisii Shiyan ayaa bilowday inay guddoonto iyada weliba farta in iyadu u qaadayso xafladda kadib dadkii oo dhami ayaa Shiyo weydiinaya sida qaabka uu Kim u egyahay daajaan oo ah maamulaha wakaaladani ayaa bilaabay in ninkaas wax hab ah laga baxsho deesha waxaa jooga nin kale oo fanaan ah oo lagu magacaabo Master Baka waxaana Kim kooyada inuu isaga heestiisii uga hadlay isagoo weliba daajaan ka dalban inuu kulan khaas ah uu la yeesho Kim balse daajaan waa uu ka diiday dhanka kale kuliya saxafiyiin ayaa Shiyo suwaysa si ay markaas u ogaato meeshii abaalmarinta geyn doonto goobta soo socotay Shiyan ayaa guriga Kim booqatay waxayna markaas u dhiibtay isla koobka waxayna isku daysay inay markaas ay la hasawdo laakiinse Kim wax dan ah kama laha sidii ayuu meesha uga tagaya isagoon ogaanin inuu qaato dawooyin walaaca ka yareynaya si uu markaas u seexdo haddii Kim riyooyin aad u khatar ah ayuuna inta badan isagu arkaa isla waqti dambe oo habeenimo daajaan ayaa markaasi fariin u soo qoray inuusan caawa guriga aadeen balse fariintaasi ma uusan arkin banaanka guriga ayuu yimaaday halkaasi saxafiyiin badan ayaa joogta si dhaqsiyaal ayuu bilaab inuu markaasi aqalkiisa gudaha ugu galo daajaan ayaa u yimid daajaan waxa uu soo jeeday in hadda gurigaani la ogaaday waxauna ka dalbaday in markaasi meel kale uu u guuro dhanka kale dadka deegaanka xaafadda Shiyan ku nooshay habeenkii way iska dabaaldegayeen dhammaan dukaanlamayaashiin aad ayay u faraxsanayeen iyagoo maanta dalabkii oo dhami free ka dhigaya isla xaafadaasi haweeney gurigeedii rabta ayaa nin burcado dareentay waxayna bilowd inay iska difaacdo sunta indhaha ayayna ku buufisaya markiiba dadka aagoo dhami ayaa taladeedu kusoo kala ordaya Kim oo maaska xiran ayaa la arkay waxaana la bilaab in laga shakiyo balse Shiyan ayaa timaaday oo ninkan horey u aqoonsatay 5 sano ka hor maadaama Shiyan hadda la aaminsan yahay waxay sheegtay inuusan ninkan waxba galabsaana haweeneydii ayaa timaaday iyada weliba ku tiri aniga dambiilaha urkiisa waan garanayaa waayo buufinka sunta ayaa ku buufiyey waa la uriyey isaga waxba kama soo ureena dadka agagaarka jooga oo dhami ayaana la uriyey ninka ka dabadashay ayaana markiiba la qabtay ninkaas ayaana la ogaad inuu dambiilaha uu yahay haweeneydaasna waxay bilood inay saxan u garaacdo Kim ayaa weydiiyey sababtii u caawisay iyana waxay u sheegtay inay garanayso qofka runta sheegaya iyo midka beelowga ah iyadoo weliba ku adkaysatay 2018 inay aragtay waxaana ogaanay in ay sidoo kale daris yihiin oo ay laba qol isku dhagan ay degan yihiin subaxdii dambe lokonka xaafadda ayuu istaagay xaafadan cusub ayuuna hadda soo tagaya dhanka kale Shiyan haweeney ayaa caawinaysa iyadoo weli u sheegtay inuu ninkani ka fogaado maadaama uu yahay khaa'in jilaal sababta la ajligeena lacag ayaa la siiyey lacagta dahab ayay u bedelata oo ay keedsataa laasi lama filaan ay aragtay kharashaad aad u tiro badan oo akoonkeeda bankiga lagala baxay cid kale maaha waana hooyadeeda iyadoo arrinkaasi ka careysan goobta hooyadeed ayay tagtay halkaasi hooyadeed waxay la tashanaysay nin dhakhtar ah si ay ganacsi qorshe u sameeyaan balse gabadha ayaa timaaday oo diiday inay kharashaadkan oo dhan ay bixiso taas oo keentay inay hooyadeed ay xanaaqto waxayna u sheegtay aniga amuurayga ganacsiga faraha la soo gelin dhanka kale daajaan aad ayuu ugu faraxsan yahay in Kim hadda meel gooniya uu tagay waxaana u ballan qaaday in alaabtiisa oo dhan usoo dirayo isagoo isku day inuu la sii hadlo Kim ayaa telefoonka jaraya daajaan haweeneydii Shiyan ayuu markaasi talahan u siiyey inay ninkaasi gacanta ku dhigto ay jacayl ku beerto halse Shiyan waxay sheegtay inuu ninkaas aad u adag yahay xitaa aniga hadda isku horkaawiye wax dan ah igama laha muuqaalka soo socda Kim ayaan aragna meel madaxay ayuu jooga oo uu piano ka garaacaya habish aad ayuu la dhacay ninkan qaad ciyaareedka muusiga maba ayba ogab in ninkan uu yahay fanaan caan habeenkii dambe ciyaarta Premier League ayaana soo dhacaysay labadooda laba naadi oo Ingiriiska ka tirsan ayay taageerayaan markiiba untadu waa ay dalbadeen isla markiiba indhahoodii ayaan isku dhacaya waxayna garowshadeen labada naadi caawa isku dhacays inay kala taageerayaan qof walba qolkiisi ayuu galay oo bilaab inuu ciyaarta u shito ilaa mar dambe Shiyan kooxdeedii ay guuleysatay tani oo keentay inay Shiyan aad u qeyleyso Kim maadaama hadda niyad jab dareemiyey waa uu la yaabaya subaxnimadii xigtay Kim baabuurkiisii ayuu sugayey si alaabtiisa oo dhami gudaha loogu soo geliyo isla subaxdaasi Kim ayaa sidoo kale guriga Shiyan yimaaday si uu markaa iyadu shaqada ugu qaado waxauna arkay baabuurka qaaliga ee Kim waxauna isku dayay inuu markaasi la galo ilaa si lama filaan telefoonka dhulka ugu dhacay Kim ayaa goobta yimid Shiyan waxa uu bilaabay inuu karaale geliyo daajaan oo goobtiisii shaqada ku sugan Master Bak ayaa u yimaaday isagoo weliba aad uga careysan waxauna su'aalka keenay xiriirka ka dhaxeeya Shiyan iyo sidoo kale Kim isagoo weliba uga hanjab inuu warbaahinta la wadaagi doono ad markaasi uu iyaga dhexdooda ka duubaya si markaasi fadeexadaas u joojiyana waxa uu dalbaday inuu kulan uu Kim la yeesho
Dhammaadka isbuuca ayaan aragnay Kim ayaa markani la kulmay hooyadii codsiya talahan waxay u soo bandhigtay in markan xiriiro uu samaysto oo uu nolosha ku guursado laakiinse isagu waxa uu hooyadii u sheegay inuusan amuurahan oo dhami hadda diyaar u ahayn Masarbag ayaa sidoo kale meel kafeeye waxa uu ka casuumay Siyaal isagoo weliba u sheegay inuu Kim la kulmi doono oo ay markaas u sheegto haddii uu ninkaasi been u sheego kakala iyamaho ayaan aragna weli waxa uu la eedaran yahay waayitaanka walaashiisa kiba ciidamada biliiska ayaa xiray iyagoo weliba ku eeday inuu markaasi sarkaal biliis ah iska dhigo saldhigga biliiska ayaa la geeyay yamaho aad ayuu uga niyad jabay taliska biliiska maadaama kiiska walaashiisa waxba laga qabana habeennimadii Kim ayaa bilaabay inuu Bak la kulmo isla qarsoodiyaan haweeneydii ayaa ku jirta iyadoo weliba markani rabtay inay ka run sheegto wadahadalkooda kulankaasi markii ugu horeysay Masarbag waxa uu weydiiyey in haddii haysta uu hadda u qaado inuu isaga erayada ka hadaya markaasi isna waxa uu sheegay inuusan weligiisa qof kale shaqadiisa uusan ka hadeen sidaa darteed haweeneyda ayaa meesha joogta oo tilmaamaysa in su-aashaasi ay run tahay si kastaba Siyaal waxay sidoo kale ogaatay in Masarbag laftirkiisa uu been sheegayo kulankaasi Bak waxa uu aad uga carooday inuusan helin macluumaadka uu rabaya Kimna sida ayuu meesha uga tagay haweeneydu hadda runta ogaatay ayay aad uga carootay soo bixitaanka maqaahida Jinho ayaa bilaabay inuu iyadu soo qaado markaasi haweeneydaasi waxay Jinho u sheegtay inay hadda ay garanayso fanaanka caanka ah oo ay dadkoo dhami aad u raadinayaan Jinho aad ayuu ola yaabay hadalkaasi cajiib ayay la noqotay waxayna ku tiri haddii aad rabtid aniga ayaa kula kulansiinaya dambu ay timaaday daarad waxay ku aragtay isagoo markani keligii meel iska fadhiya waqtigaas waa guurtay face mask ayaa u xirna waxayna bilowday inay wejiga ka siibto waxayna hadda noqotay qofkii ugu horreeyay uu wejigiisii arkay Kim markii hurdada ayuu ka kacay Dojon ayaa Kim soo booqday Kim waxa uu aad isku weydiinaya siduu gabadhan u hilmaamay haddii uu baska kula kulmaya sidoo kale Dojon ayaa niyad u dejinaya waxa uu ku yiri hal suur oo qarsoodi oo kale ayaa internetka ka yaala dhanka kale haweeneydan maadaama hadda ay runta ogaatay waxay bilowday inay Kim ay baarto waxayna ogaatay inuu yahay fanaan qarsoodi